المسلمين فرج على المسلمين حسن شيخ لا يقول لا سيو حسن شيخ لا يقول لا سيو قول والحسنين والبتول آمين وجاء جبرائيل آمين آمين kulan duco oo quraan loogu aqrinayay murashax madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maantii lagu qabtay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho oday dhaqameedka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee beelaha Banaadiriga ayaa dhigay kulan duco ah iyaga oo ku amaanay in xasan sheekh xilligii uu madaxweynuhu uu ahaa uu wax badan u qabtay beeshaasi iyo degmooyinka ay ka degaan gobolka Banaadir haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha kulanka oo la hadlay goobjoog maanta Banaadir waxay leeyihiin nidaamka kaliya taliska hadho xasan sheekhna ha guuleysto waxay rabaan Banaadiriga Soomaali heshiisa adduunyada heshiis la ahay rabaan maxaa yeelay waa dad nabadeed madaxweyne xasan sheekhow dadkan waa ku soo duceeyeen ilaahay idamkiisa madaxweynena waa noqonaysaa waa ku soo noqonaysaa fil Soomaaliya dadkan waxay ka rabaan marka balanqaadkii habeen hore balanqaaday ee ahayd in ma artay mas'uuliyadii laga wada qaaday oo dhan adib ugu soo celinaysid horta waa rabaan maxaa rabtiin mas'uuliyadii laga wada qaaday oo dhan dadka in lagu soo celiyo waa rabaan safaaradii dhan maanta waxa ka taagan hal safiir ka taagan oo Sacuudiga ah inuusan nidaamkii kaliya taliska xishoonayn wuxuu ka qaaday oo ugu dambeysay beelaha Banaadiriga safaaradda Imaaraadka Carabta safiirka Imaaraadku ka qaaday wuxuuna u dhiibay nin beeshiisa ah inuusan xishoonayn sidaa darteed waxaan rabnaa in waxaas laga gudbaan rabnaa in boosishanadoodii dib loogu soo celiyaan rabnaa sidii aad balanqaadayba dadkaanu waa ku xiiseen dadkaanu maartay wixii maartay maanta ay kitaabada inta u kala furteen oo ay ku duceysanayaan inaad dib ugu soo noqoto waxaad adiga samaysatay waay waxaan rajaynaynaa intaas iyo in ka badan in aad u qaban doonto باذن الله تبارك وتعالى بري ayayna ku beegantaa doorashada guushiyaale waa guuleysanayna ilaahay idimkiisa waa mahadsantihiin waxaan hadalkaygu ku soo gabagabaynayaa waa guuleysanaynaa Soomaali heshiisa adduunyada heshiisa ayaad arki doontaan باذن الله تبارك وتعالى بري wixii ka dambeeyo insha Allah ilaahay inta soo noqo mar labaad guuleysto oo faan saasa urjaan ninkii garab nagu sii waa maanta iskoolada badan loo furiyo waxa nagu dadaalay oo faan dhalinyaro xataa badan oo shaqaalo oo shaqo haasijin shaqo u yaalay oo faande garab dhaax hadda waa u yaalay ma faan wadanka ammaan oo ahay hadda horumar badan waa gaarno ahay waqtii hore hadda laakiin xaaladu waa xumaad wax hadda oo haana ma jiro koob waa shaqaysiin hadda laakiin shaqa ma leh waxa jirno ma leh waxa uu rajeynaa xasan sheekh guul mar labaadna soo noqdo xasan sheekh guul oo rajeynaa insha Allah taala dadweynaana oo maanta soo sharafeen khayraad faataxa umalina walaalkiina xasan sheekh ilaahay guul ilaahay agsiyo faataxa u soo marnina ilaahay waxa kamida unugana ducadaan anu soo dhiibo دعاء نوصل دي إلهي كبرينا دعاء كربنا دعاء نوصل دي ولا بنادي لك أو بتجاهل وحبضنا نوتر نكاس إلهي اللي قاعد في عن جيب العد وحبضنا نوتر نكان هذا كليس عداقة واحد نوتر ما أركن واحد وقفتنا ما أركن نكا إلاس وأقول إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم آمين إله نجا قبله الله نجا جيبه سبت أحد عاوز وقلوسا إلهي وعنك توجنا حسن شيخ بري بحاله بري oo axada 15 May ayaa la filayaa in Muqdisho lagu qabto doorashada madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya iyada oo Xasan Sheekh oo hore u ahaa madaxweynihii 8aad oo doonayo inuu mar kale soo noqdo muna taagtaagsada goobjoog Muqdisho bishaaro macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay
shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ay kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM. Fiiro gaar ah, ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM. Mahadsanid.